madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya xaqiijinta hay'ado dawladeed oo ku dhisan kuna shaqeeya sharciyo qoran oo waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka ayaa maanta saxiixay 3 hindisho sharciyeed oo ka soo gudbay golayaasha sharci dejinta dalka. munaasabad kooban oo ka dhacday halkan oo ah Villa Soomaaliya ayuu madaxweynuhu ku saxiixay shuruucdan oo dhammaantood ahmiyad u leh dawlad dhiska Soomaaliya gaar ahaan waqtigan lagu jiro la dagaalanka kooxda qawaarijta ah ee Al-Shabaab kuwaasi oo kala ah hindisa sharciyeedka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka, hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman iyo hindisa sharciyeedka korontada. sharciga hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo soo maray dhammaanba habraacyada aasaasiga u ah samayntiisa kana soo gudbay labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ay yeelato hay'adda NISA. sharcigan oo ka kooban 51 qodob waxa uu si qoto dheer u dul istaagayaa waajibaadka hanaanka shaqo iyo awoodaha hay'adda, agaasinka hay'adda iyo guud ahaan howlwadeennada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku tilmaamay sharcigan mid ahmiyad gaar ah u leh dawlad dhiska dalka, isagoo tilmaamay in dawladda federaalka ay ka go'an tahay in hanaan sharci ah loo maro talaab waliba oo ay qaadayaan hay'adaha dawladda. runtii guul aad iyo aad u weyn oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadda intaba ay wada shaqeeyeen oo la soo gaaray taariikh gaar ah iyo muhiimad gaar ah ayuu leeyahay sharcigan qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay'addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay dhowr iyo 50 sano kadib maanta in la dhaqan geliyay oo uu jiro wax weyn weey. sharciga cunaqabateynta dhaqaale ee cayiman oo isna ka mid ah shuruucda uu maanta saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahmiyad gaar ah u leh dagaalka dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ee kula jiraan kooxaha gobolkoodu si dhacayo ee qawaarijta Al-Shabaab. si gaar ah sharcigan ayaa awood u siinaya hay'adaha dawladda inay qaadaan dagaal ka dhan ah ilaha dhaqaale ee kooxda qawaarijta gaar ahaanna hantida ay ka boobaan shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale sharciga korontada oo isna muhiim u ah ganacsiga dalka ayaa ka mid ah shuruucda uu maanta qalinka ku duugay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. sharciga korontada ayaa sidoo kale asigana la sugayo muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka u gaaraya iyo baahida loo qabo iyo sharciga kale ee cunaqabateynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma iyo khalkhalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka qatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda in lagu xadido loogu talagalay 3 sharciyo aad iyo aad muhiim ah. waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan oo nagu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta iyo hadday noqoto hay'adaheena muxuu ahay u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahayd dhaqaaqi lahaayeen oo ugu hambalyeynaya. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, Villa Soomaaliya.